muuqaalkana wuxuu ku bilowday Melissa haween lagu magacaabo uurna leh shaqadeeduna ay tahay jaajuusnimo nin baadgaay ahna ama burcadana ku hawlaneed shaqadiisa inay gacanta ku soo dhigto iyadoo saarsanaysa ogaanaysa in ilmaha caloosheeda ku jira waqtiga dhalilaheed la joogo waxaana wacaysaa ninkeeda una sheegtay hospitaalka inuu uga soo hormaro xogaar kadibna xaggaa soo gaari doonto kama dambeyntiisa ninkii burcadka ahaa oo TikTok magaciisa la yiraahdo ay isqabteen feeraha ka tumisay raggiisa waxayna ku hubsanaysaa gacantiisa in xabsi la geeyo ninkan intaa kadibna isbaynimadeeda warqadii cadeynaysa ku wareejinaysa booskeeda oo danger la yiraahdo una sheegtay shaqadan jaajuusnimada maanta laga bilaabo aniga kuma jiro maadaama ilmahan haatan aan dhali rabo ayaa rabaa noloshooda inaan wanaajiyo ayagaasna xooga saaro balse danger u dhahayo aniga tiimo waa ku baahanahay balse tiri waa baxay aniga dhinaca kale hospitaalka ninkeeda oo Wilber lagu magacaabo labada caruur u dhalay oo gabriyo wiila Rebecca iyo Cecilna lagu kala magacaabo haweeney kalena u soo dhashay intay sugayeen xaaskiisii dhali rabtay uga sii sheekaynayo waxaan rabaa inaan bilaabo show kaasona kuwa jaajuusiinta ah si qarshooda muuqaal loogu dubay waxaana soo baxaysa Wilber inuu ahaa nin weriyaha balse nooca fashilka noloshiisa ay ku soo dhamaato gabadhiisa si uu weydiisay ragga jaajuusiinta sidee ku soo helaysaa oo muuqaal ugu soo dubaysaa isla waqtigaas xaaskiisii Melissa hospitaalka soo galayso isla markiina waxaa la gelinayaa qolkii lagu dhalinayay ilmaha muddo sanada ka soo wareegatay kadib dhalitaankaas waxaan ogaanaynaa in Melissa gabar ay dhashay ninkii Wilberna isla markiiba uu bilaabay sheekadiisii wariinimada ee uu ku ugaarsanayay kuwa jaajuusiinta ah subax kamid ah ninkan oo shaqadiisa si aad rabay labadiisa cunug kula dardaarmay inay iskuulkooda aadaan halkaas intay joogaan ay u dhaqmaan si fiican kuna daray eegiisa ama caruurtan eega waardiyaha u ah oo ah mid aanan hadlin balse uun kaliya dadka koorkoora dhinaca kale Melissa booskeedii danger oo xafiiskiisa ku jiro rag isagan u shaqeynaya u soo galayaan waxayna la socodsiinayaan in waqtiga sida caadiga uu u socon jiray maanta waxa ka qaldan yihiin isbiidna uu ku furan yahay wuxuu ku dhahay sidoo dhaqsiyaha badan waxaa jirta saacad kale taasoona istaajin karto degdegtan waqtiga ku furan una diraya dhamaantood inay u soo helaan habeenkiina oo la gaaray Wilber shaqadiisa ka soo noqday Wilber isla markiiba xaaskiisa iyo gabadhii cusbeed ee u dhalatay waqti siinayo taasna Rebecca iyo walaalkeed Cecil ka xanaaqeen midna ayaa soo baxaysa in Rebecca ay dadanteeda aad u nacbeed qolkooda markay soo galanayay walaalkeed ka yar ka wada hadlayaan maalmahan aabahooda inuu waqti siinin ama uusan la sheekaynin odigana jalaalahayn hooyadoodii booskeedii inuu u bedelo gabadhan yarna aad uga shakisaneed Melissa inay u muuqato mid waxa far badan ninkeeda ka qarinayso waxayna dhaysan soo ogaadona waxa soo yihiin waxayna bilaabaysaa cunugtan yar inay sirq u dhigto eedadeeda wali boqol iridiisa daqiiqada aan saas u sii badneen ka soo wareegtay Rebecca qolka caruurtan soo galayso iyadoo rabta inay gabadhan la heshiiso waxayna ku dhahaysaa waan ogahay hooyadiini booskeeda idin buuxi karo laakiin waxaan isku dayi doonaa inaan idin noqdo hooyo fiican si gabadhanna jacayl ugu kasbato hadiyad ahaan u siinayso qoorgashi agteedana aad qaali ugu yahay laakiin haatan qoorteeda markuu ku xiran yahay kasii qiimo badan yahay iyadoo sirwaalihiisa caruurtan qolkiina kasii baxaysay sirqdii gabadhan ee dhigaysay goor hore Rebecca waxyaabo dareeraha ay ku soo daadeen albaab markiisaas uga sii baxaysay waana ay ka xanaaqaysaa isla markiina ninkeeda Wilber u imaaday waxayna ku dacweynaysaa gabadhiis arrinkii ay ku samaysay Wilber si intuusan ficil ku sameyn caruurtiisa yar goortaas ay TV ka arkayaan news taasoo sheegaya in waqtiga uu isbiid ku furan yahay saacadiina iska socotaba kaligeed nin ka soo muuqanaya shaashada uu sheeganayay inuu yahay qofka mas'uulka ka ah uguna jabay dadka ma joojin doono ilaa wixii aan aniga rabo aan helo isla goortaas Rebecca ninkan booteynaya gadaashiisa ay ku arkayso ninkii TikTok ahaa ee hadda ka hor xabsiga ku hubsanaysay waanay ka xumaanaysaa kadib markay ogaatay ninkan in xabsiga uu ka soo baxsaday ninkii Wilberahaas ku faraxsan yahay warkan uu caawarkay isagoona ku rajo weyn waraysi inuu la yeesho ninkan isla runtii dambiilahan shaqaalihiisa iyo TikTok u sheegaya waxaan u baahanahay dhagax aad qaali u ah kaasona awoodeeda sare u sii qaadi doono ikana hadii kale idinkan iyo wada gogoyna waxayna isla markiiba bilaabayaan howsha helitaanka dhagaxaas midna ayaa soo baxaysa in dhagaxaas qiimaha badan Rebecca kii qoortay u gelinaysa Melissa inuu yahay habeenkaas subaxda yeeltay Melissa oo shaqadeeda gurigiisa ka howlaneed fariinka soo gaarayso kambanigii ay jaajuusku ha jirtay OSS lagu magacaabo loona sheegayo in sidoo dhaqsiyaha badan dhagaxii qiimaha badnaa ee iidan hisay in xaruntooda ay keento maadaama si koor gabadhii Rebecca ay u hadiisay u imaanayso waxayna ku dhaysaa qorgashiga ayaan u baahanahay gabadhaasi ka caroonayso taas balse mardan u tiray waan ku siinaa bokoskii ku jira nafarta ka saaraysa bacdina Melissa ka soo tagaysa guriga labadan walaalas ee uga soo tagtay balas eegi waxaa soo baxaysa in Rebecca dhagaxii qiimaha badnaa ayba bokoska guridin iidan ay weli xiran tahay dhinaca kale marayso kama dambeyntii booskeedii danger meeshuu jooga soo gaartay una tagtay bokoskii markuu kala furay ninkan wax qashina ay wejiga uga fardhisamayaan baraankiina mar kale Rebecca ay dadeed ku samaysay isla markiina fahamtay gabadhii Rebecca inay ka dambeysay booskeedan u sheegtay mid rasmiga sidoo dhaqsiyaha badan anaa ku
uu keenayo wuxuuse ku dhahayaa taasay isku dhibin maadaama ninkii tiktoka uu soo baxsaday kawaran dad asiga meesha uu joogo aad dabagal ku samayso halka gurigii carruurtii ay joogeen tiktok iyo kooxdiisa ayba yimaadeen qorshoodan u yahay dhagaana qaaliga inay gacanta ku dhigaan qorigoodiisa isticmaali rabeen labada carruurna guri ku jiraan meeshan halkaana wax ka socdaysan war u haynin gurigaankooda uu ahaa mid casriya oo dad ku xirna u sheegayaan inay ku xaroodaan qolka baanika balse Rabeeca iyo walaalkeeda ay waxba ka soo qaadaynin tan hasaatee eygoodii mahadlaha oo guriga dhex furmay galay ayagana ka dabagelayaan waxayna soo gelayaan qolkii baanig roomka halkaas intay ku jireen waxaa dhacaysa tvdii qolkaas inay keligood isdaaraan Melisana kasoo muuqanayso muuqaale hore u duubtana ahaa kuna caddaynaysa inay tahay naag jaajuusad ah sidoo kalena eegaankooda ee mahadlaha dadka keliya korkoray isagana uu yahay robot uba ii rasmi ahayn Rabeeca isdhayso idadaada barankiyaad ku samayn jirtay ka aarsanaysaa hasaate eegi laftirkiisa oo hadlay markii uu horeysay u sheegay runta halkaas la gurigan gudihiisa tiktok teamkiisa oo qolka panic roomka ayagana rabeen inay soo galaan Melissa u sheegaysa carruurtan inay kursi meeshaan dhan ka soo wadaya inay koraan waana kuwo amarkaas qaatay gurigiina qalab mashiin oo isbiida uga soo baxsaday nasiix mase lagama herayo tiktok teamkiisa ayagana qalab kale oo isbiida ku daba bursanayaan carruurtan midkiisana oo aad u isbiid badnaa Cecil uu dareemayo xoogaa laba ah balse ay robadka farta ka saaray maro kuna matagay wixii ku matagi lahaay intuu hawada ku tuurna tiktok teamkiisa matagtii ay ku dhacday taas oo keentay in xoogaa ay ka haraan kasoo fogaashadiina ay uu wacayo Melissa isagoon u sheegay carruurtii inay ku soo wajahayeen dhinaca kambaniga ay u shaqayso waxay sadhaysaa halkaas qof inay ku soo dhaweeyo ayaan idinku sii diyaarinaya carruurta ayagoo nabada keen kama dambeyntiina ka soo degay xaruntii haweeney magaalada Carmel yahan ay soo dhaweynayso una sheegtay cid ay tahay iyo jaajuusad gaar ah Melissana waa eedadii u sii raacisay carruurtan u soo gelisay gudaha Rabeeca su'aalo badan oo eedid ku saabsan qabtay haweeneydan weydiisay aysan la yaabayso Rabeeca iyo ninkeeda balas ilmahan ay bawar u haynin Melissa inay tahay naag spy ah waxayna dhahaysaa majashin inaan inagii qorkii eedadiina lagu soo tababaray markay idinka camal ahayd ayagani dhahayaan haban u baahnay soo gelinaysa qol qarsoodi ahaa oo carruurta spy ah kaliya lagu tababari jiray qalabyo kala duwanna iyo sida loo isticmaalo faahfaahsiinayso carruurtan hasaatee aanan daaraynin oo u ogolaatay inay isaga baashaalaan kama dambeyntiina ka soo saartay qolka una sheegtay inay meel gaar ah la geyn doono kuna qasbiyihiin inaysan ka soo bixin hayagan ay ka ogolaanayaan dhinaca kale Melissa raadinteedii dheereed kadib kama dambeyntii soo gaartay tiktok halkii uu ku dhuumaalaysan jiray gabadheedii yareed nala socoto dharkeedii u gaarka ay shaqada ku geli jirtan intay soo xiratay u soo gashay gudaha waxayna si qarsoodi u dadawanaysaa tiktok iyo tiimkiisa oo qorshahooda xiga ka baaraantegayo kama dambeyntiisa Melissa inay meesha joogtaan arkeen isku dayaan inay ku goobtaan amaba qabtaan hasaatee la ciyaaraysa farsamo inay ka badiyihiin ogaatay ka soo baxsataba goobta halka labadii walaalo qolna lagu soo xiray Rabeeca fikrad ku soo dhacayso waxayna walaalkeed ku dhaysaa ka warna hadaan ani adiga baxano gacantana ku soo dhigno ragaan baadkayga ah ee xunxun ayoodii waardiyahaas uu ka yeelaynin taas balse gabadhan ku guulaysatay walaalkeeda inay ku qanciso waxay eeday rabtay maadaama ay u baahan yihiin qalab awood ay ku dagaalamaan mashiinadii kala duwanaa tijaabinayaan waana kuwa ku qancay systemkan iyo u shaqeeyo kadibna si qarsoodiyaha isku dayeen inay uga soo baxaan dhismaha oo dhan waxaase istaajinaya rag waardiyaalaha nasiib wanaagsan ayagoo gacan ka helaya eygoodii raggaana farsamo la ciyaaray u suura gashay inay ku soo dhuntaan qolkii mashiinkii isbiidkaha u yaalay intaa kadib carruurtan raaditaan u galayaan tiktok iyo tiimkiisa halka ay joogaan waxayse la yaabayaan luqadaysan fahmin oo u soo saarayay qalabkan mar dambese Cecil oo yiri luqadan anaa turjumi yaqaano ku guulaysanayo wuxuuna ogaanaa tiktok inuu ku dhuunto meel saacadaha lagu cilad bixiyo oo dhulka hoostiisa ku taala mashiinkii ayagoo raaci rabay si ninkaas meesha uu joog u tagaan Carmen iyo kooxdeedii ka soo muuqanayaan isla qolkan waxayna carruurtan ugu digayaan inaysan isticmaalin si kastaba hadalkeedana dhegaysan waana kuwa ka soo baxsaday goobta waxayna sarkayaan ayagoo ag taagan bannaanka tiktok meesha ku dhuunto intaa kadibna Carmen ay wacayso Melissa una sheegaysa carruurtii iyo ficilka ay sameeyeen Melissa oo baqda carruurtan isla markii weydiinayso locationka ay joogaan iyo soo dir idinkoo qalabka isticmaalayo ku sanoq markii carruurtii gudaha u soo galeen dukaankii saacadaha lagu farsameynayay wiish kasii baxayana sii koreen haddana waxayna gudaha u soo galayaan meel hoose bartaasna ku arkaya saacad aad u weyn oo si isbiida u dhaqaaqayso intaa kadibna isna weydiinayaan maxaynu samaynaa Rabeeca nasiib wanaag arkayso albaab ka soo muuqanaya saacadda geeskeeda kale waxayna dhahayn inaan meeshaas gaarnaa saacadiina dusheeda intay ku socdeen Cecil funaanadiisa saacaddii beriheedii
uu u gelayo taasoo nakata in xoogaa la wareerijiyo kadibna dhulka lagu turo si xunna jug ay u gaarto. dhinaca kale aabahoodii Wilber welihii fashilka ah il uu ka hayo maalmahan inuusan waraysanin qof jaajuus ah wuxuuna caqligiisa si kaashanaya ku guulaysanaya inuu samaysto mashiin kaasona isbaayada meelaha ay joogaan u sheegayo kusana marka la caruurtii albaabkii ay soo galeen kama dambeyntii soo galaya qol TV meeshaas yaalan uu ka soo muuqanayo muuqaalo hore waxaana soo baxaysa in isla qolkan ama qofkan meesha ka soo muuqanayo uu ahaa kii sameeyey dhagaxii aad ku qiimaha badnaa. Rebecca ay ogaanayso sababta TikTok aygan uu u ceersanayo ay tahay qoorkashigan dartiisa xogtaasi ogaadeen kadib go'aan ku gaaraysa inay meeshan ka cararaan sida u dhaqsiyaha badan. Nasib xumase intaysan ka bixin dhismihii TikTok uuba goobtan soo gaaray waana mid caruurtan baraf ka dhigay oona awoodin inay nuucsadaan isagoo riixan intuu soo waday u keenaya booskiisii. booskan uu ka dalbanaya caruurtan in qoorkashigan farta ka saaraan balse Rebecca ay ka diidayso. waqti xadirkaasi Melissa iyo Carmen oo wada socdo isla goobtan soo gaareen. Carmenna ay caruurtan qalbadii goor ay siinaysay u daarayso ilmahan aad ugu farxeen inay qalbkan isticmaalaan markoodii ugu horeysay lana dagaalamayaan TikTok iyo kooxdiisa. dhinaca kale Wilber oo kaamiramanadiisii soo wataysna locationkii uu sheegay qalabkiisina yimid si muuqaal u dubto gudaha uu soo galaya saacadii weyneed meesha taale dagaalkan uu ka dhacayay waana mid si qarsoodi ah uga duubanaya muuqaal. goortaasi xaaskiisa iyo caruurtiisa inay meeshan joogaanba war uusan u haynin. dhinaca kale goobtii dagaalka TikTok oo nuucyo fara badan oo qalabyo haystay ku soo fasaxayo qorshihiisana uu ahaa gabadhan qoorkashi ugu jira inuu kala wareego. si kastaba gabagabadii u surogelaysa Melissa iyo Carmen caruurtan inay kasoo saaraan goobta waana kuwo meel ilmaha lagu ciyaarsiiyo keenay. Rebecca ay raaligelin siinayso iyo inay ka xun tahay kaligood inay go'aan gaareen kadibna shaqo iska galeenba. hasaata Melissa dhayso ilma geesiyaal ayaa tihiin ooba aniga gisi geesisan. goobtiis intay joogeen laga soo wacayo xaruntoodii OSS Melissa dhayso caruurtan xagaaskii adiga aniga shaqo jar ayaan soo qabana. gaarigeedna markay soo raacday ninkeedii Wilber uu taleefkeeda soo wacayo wuxuuna u sheegayaa muddo sanada kadib uu raadinayay inuu isbaay muuqaal ka dubto maanta uu soo helay ayagoo dagaalamayo weliba Melissa ay ka cabsanayso ama uga baqayso ninkeeda inuu maanta meesha ku soo arkay maadaama xaadiray ahayd. intaa kadib Wilber iyo tiimkiisa oo fiidiyo idid garaysanayay ishiisu ay qabanayso caruurtiisa iyo xaaskiisa oo ayagana dadkii dagaalamaya ku jiray booskiisana aad ugu faraxsanay. muddo far badan kadib in Wilber muuqaal aan caadiyan keenay isagoo se caruurtiisa iyo xaaskiisa u baqay maadaama isbaaynimada ay tahay shaqaalisa canjaladii fiidiyogaas uu kusoo duubay ruugaya isaga oo dhan. booskan intuu ka xanaaqataas Wilber isla maalinkaasba shaqada ka soo buriyey. intaa ka bacdan gaarigiisa isagoo saaranaya alaabtiisa xaaskiisa ka soo hor muuqanayso waas uu ka qarinaya wixii uu indhiisa ku soo arkay iidan u mileynaysay shaqadeeda inuu ogaaday muddo fara badan ay ka qarinaysay kadib. dhinac kale uu weysa xaruntii Danger booskii meeshan uu shaqo gelinayo nin Juni la yidhaahda magaciisa kaasoona shaqo gab muddo sanada ka hor noqday kadib dhaawac weyn loo geystay haatanna u baahan yihiin inuu tiimka ku soo biiro maadaama kuwaan wax matalayaal yihiin. hasaatee Carmen iyo Juni oo ahaa kuwa wada dhashay ku raacaynin booskeeda. si kastaba Danger uusan dhegaysanaynin hadalka wuxuuna ku qasbay dhammaan shaqaalihiisa inay mishinka loo diray ee TikTok hawshiisa galaan. haatan xaruntiisa kaliya looga soo tegay labadii walaalo iyo eygoodii. Rebecca aad ugu xun tahay joogitaanka meeshan muddo saacadaas kadib Danger oo qolka ugu soo galay aad u ammaanayo shaqadii maalin hore ay qabteen. kahor intuusan meesha ka tegin Rebecca indhaheeda ay qabanayaan Danger saacadan caadihin u xiran waxayna qiyaasaysaa saacadan inay ahayn mid caadi ah. Danger si uu sii cadaynayo inuuba yahaba ninka baadkayga ah ee waqtiga inuu isbiid ku socdo ka dambeeyo. weji labaadna uu leeyahayba Danger qolkii inuu tasaga bixin caruurtan haatan qofku yahay ogaaday ku soo xiraya una sheegay meeshiina kama soo bixi kartiin wax walba oo dhaco. Rebecca oo eedadeeda iyo tiimkii kale waqti xadirkan Danger inuu ku ciyaarayo ogaatay waxayse eedadeed waxayna u sheegaysaa Danger waa qofka aad raadinaysiin. waxay soo malaynaysaa mar kale barankii ay ku sameey jirtay mid kamid ah hadalkeedana aan dhegeysan gabadhan yar. shaqadoodina ayuu watay kama dambeyntii soo galayaan qol saacad weyn ay taallay iyagoo si islaa waa halkii aad rabteen mar dambe ogaanayaan inayba waxay yihiin wax beena oo hologaraama iyagoo is weydiinaya meesha waxa ka socdo. halmar Danger oo meesha yimid waana mid wejigiisa tusay inuuba yahay ninka ka dambeeya wax walba oo dhacayo. ayagoo se weydiiyey saacadda rasmiga xagee taallaa ugu jawaabay OSS ayay jirtaa haatan ayaan u socdaa yaa iga celin karo meeshaas. saddexdoodana baraf ka dhigay oo sanam camal u taagtaagay. goobtiina markuu ka tegay xoogaar kadib Juni uu ogaanayo in dadkan uusan ku jirin kuwa taagtaagmay waxaan uu soo bixisa in dadkan wato
calaamada sharafta keliya u awooda maadaama isagu uusan calaamada siisanin halistii carruurtii yareed kusii socotana uu xaqiiqsaday aygii wacay wuxuuna u sheegayaa Danger inuu khiyaano la noqday aygana hadda loo baahan yahay inay nafsadooda difaacaan iyo sharafta tiimkan kooda Rebecca soo weydiisay sidaan uga hortagi karnaa ninkaas Johnny uu u sheegay qalabka aad haysatiin ayaan idin daaray awoodna ay u wadan sii doonaa si wada jiraan u shaqeeyaan labadooda aygoodii robotkan aygu isticmaalaya awoodiisa ku amray albaabkii lagu soo xiray inuu jabiyo waana uu u jibinaa kadibna soo galay qolkii carruurta yareed lagu tababari jiray mar hore iskuna soo hubeeyeen suudadkii kala duwanaa ee meesha yaalay walaashood aad u yareedna xitaa u soo helay mid una bixiyeen magaca Spy Baby halka Johnny dhammaan tiimkii wada shaqeynayeen oo mar kale ku soo celinaya sidoodii caadiga ahayd lana sii socodsiiyey sidoo kale in carruurtii qalabkoodii uu u activate gareeyay hasaatee Melissa ay ka xanaaqayso taas maadaama ilmaha halis uu geliyay nafsadooda kasii baxayn si qolkii mar kale haddana meel siriq ah ay ku dhacayaan dhammaantooda halka Rebecca ay walaalkeed dagaal kula jiraan TikTok tiimkiisii mar dambese TikTokii weynaa ay iska hor yimaadeen ku qasbaya Rebecca in ku soo wareejiso qalab walba ay haystaan haddii kale uu dhammayn doono waxayna ku qasbanaanaya inay siiyaan eegoodiisa oo xaalkan dhan daawanay isla markaas wacayo carruurtan aabahooda Wilber una sheegay si wax u socdaan garabkiisana u baahan yihiin dhinaca kale carruurtii oo loo soo waday saacaddii weyneed meesha ay taallo Rebecca uu soo galayso TikTok jeebkiisa saacad ku jirta inay ka xaddo si farsamaysan qorgashi uu sidoo kale Danger gacanta ku dhigay Rebecca ay weydiinayso ninkan maxay tahay sababta aad saacadan aad ugu baahan tahay oona dhibaatadan dhan u geysanayso wuxuu soo jawaabaa baashan awood weyn ayay leedahay oo waxaan rabaa waqtiga inaan dib u celiyo kadibna aabahaygii aan la kulmo waxaana soo baxaysa ninkan aabihiis inuu yahay waxaana soo baxaysa Danger aabihiis inuu ahaan jiray nin saynisyahan weliba raggii soo saaray saacadan iyo dhagaxaanba uu ku jiray maantana dib ayaan u noqon doonaa aabahaygii sidaan waqti ula soo qaato carruurtii harsi uga digayaantaas halisna ay ku tahay asaga rasmidaan dhegaysanin hadalkooda halkaas sheekada markay marayso Melissa iyo tiimkeedii albaab ka soo baxayaan weliba portal ah asbaxmase mar kale Danger uu ayagan sanam u bedelayo kaliya markii laga reebo carruurtii isagu si suudiye maxamesh ka qaldan waxa soo baxaysa in gabadhan yar mar kale ninkan saacadii iyo qoorkashigiiba ay ka farsamaysay ka jeebsiibtay waana kuwa ka soo ordaya damcayana inay saacadan speedka ku socoto istaajiyaan taasna u baahan yihiin marka hore saacada meeshii laga jooji lahaa inay tagaan hasaatee TikTok uusan ka haraynin mar damban u soo gashay gabadhan inuu kala wareego qoorkashigii Dangerna uu portalkii gelayo wuxuuna la kulmaya aabihiisa mar dambe uu ka soo baxay isagoo waayeela cirro soo yeeshay waana sababta carruurtan yar uga digayeen markii hore kana shileeyay ficilkii uu geystay aabihiisna u soo sheegay inuu iska ilaabo wixii hore uu hore u sii socdo wuxuuna go'aansanay saacadan inuu cilad bixiyo qalabkii qaaligaana geliyay istaagtana saacaddii speedka ku socotay dhammaan kuwii uu bombalo u bedelana caadi ku soo noqonadeen Melissa la midoobayso markale carruurtan geesiyaasha ah mar kalese TikTokii u shaqaynaya Danger uu leeyahay Danger uu haddaad adiga ogolaatay inaad daacad noqoto ma yeelaaye wuxuuna mar kale saacaddii ku furayo speed isla koortaasi Wilber oo isna halkan yimid hadaashiisa dookimid ninkan jeebad ku xirayo waa TikTok xabsigana loo dhaadhiciyey intaa kadibna Wilber carruurtiisa annan ugu qabeynayo xaaskiisa Melissa bent u sheegtana ku yiri waan ku xafiyey meeshiisa la kala tegi rabay Johnny iyo walaashiis carruurtan u sheegayna hadal farxad leh kaasoo ana waxaan markale dib u soo celinaynaa Spy Kid tababarkii carruurta loo sameeyay jiray maadaama labadiina geesiyaal tihiin tiimkiina bedeli lahaa ayaad noqonaysaan waana ku farxeen ayagana eegiisoo kama dambeyntii gabadhiira looga soo tegay meesha keenay ku dhacay suga sabraasala ayaan idiin haayaa cunugtii yareed ee Melissa inta istaagtay ninkii TikTok ah oo rabay meesha inuu ka baxsado 4 darbo oo kuleela u gelinayso ninkan Melissa aad u farxayso gabadheedii oo geesiyad ah maalmo kasoo wareegdan kadib Melissa iyo Cecil ay ka mid yihiin kooxdii jaajuuska waana kuwa bilaabay inay adduunka ka qortaan carruuro loo tababarayo jaajuusnimo dhammaadkeena ayaad soo gaartay waad mahadsantahay